qaldan ma jiri karo dawlad la'aan dawladana waxa muhiim u ah inay leedahay qaanuun sharciyo iyo nidaam dalkeena Soomaaliya 3 sano oo xilka hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ku soo kordhay shuruuc asaas u ah dawladhiska dalka kobaca dhaqaalaha horumarka adeegyada bulshada dawladhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo sharciga nidaamka doorashada iyo go'aankeeda dib loogu celinayo dadweynaha Soomaaliyeed shuruucda la ansixiyay ayaa soo maray habraacyo kala duwan sida uu qabo dastuurku marka hore waa hindis sharciyeedyo ay soo curiyeen golaha xukuumaddu kadibna waxa loo gudbiyay labada aqal ee baarlamaanka oo sida sharcigu uu qabo xaq u leh ansixinta wax ka bedelidda iyo diidmada hindis sharciyeedyada loo soo gudbiyo golaha sharci dejinta ee waqtigan jira waajibaadkii loo xilsaaray inta badan waxay u guteen si xawli ah marka la fiiriyo kuwii ka horeeyay oo lagu dhaliili jiray in gudashada waajibaadkooda shaqo ay ku socoto si gaabis ah mararka qaarkoodna ay mas'uuliyadooda dastuuriga ah kala wareegi jireen madal iyo golayaal waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa shuruucda muhiimka u ah dawladnimada iyo dibdhiska dalka kuwaas oo uu qalinka ku duugay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddadii uu xafiiska joogay sharciga isgaarsiinta qaranka labadii bishii Oktoobar sanadkii 2017 markaas oo uu bilo kooban xafiiska joogay madaxweyne Farmaajo waxa uu qalinka ku duugay sharciga isgaarsiinta kaas oo ah midkii ugu muddada dheeraa ee inta la og yahay shuruucda la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya wax ka badan 10 sano ayuu baarlamaanka hor yaalay ugu dambeyntiina madaxweyne Farmaajo ayaa si kama dambaysa u siixay kadib markii ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sharcigan oo ka kooban 12 qaybood waxyaabaha uu jideynayo waxa kamid ah dhismaha hay'adda isgaarsiinta qaranka oo ah mid madax bannaan taas oo ansixinta sharciga kadib dhismaheeda uu ku guuleystay madaxweyne Farmaajo iminka waa hay'ad madax bannaan oo leh haykal maamul kala sareeya miisaaniyad gaar ah iyo shaqaale shaqooyinka ay u xilsaaran tahay hay'adda madaxa bannaan ee isgaarsiinta qaranka waxa kamid ah bixinta ruqsadaha isgaarsiinta iyo la socodka inuu fulo ama dhaqan galo sharciga isgaarsiinta qaranka sharciga dhismaha hay'adda naafada qaranka hindis sharciyeedka heshiiska caalamiga naafada madaxweynaha uu soo saxiixay bishii Diseembar sanadkii 2018 madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga dhismaha hay'adda naafada qaranka kadib markii ay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka ansixinta sharcigan madaxweyne Farmaajo ayaa si gaar ah uga codsaday labada aqal ee baarlamaanka maadaama dawladda uu hogaamiyo ay mudnaan gaar ah siinaysay daryeelka dadka naafada ah ee Soomaaliyeed sharciga maamulka dakhliga madaxweynaha waa saxiixay bishii Oktoobar sanadkii 2019 waxay ahayd maalin kale oo guul weyn xambaarsan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga maamulka dakhliga kadib markii ay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka sharcigan ayaa qayb ka ahaa dhamaystirka hanaanka maamul wanaagga iyo hufnaanta maaliyadeed ee ay dalka ku hogaaminayso dawladda madaxweyne Farmaajo sharciga maamulka dakhliga ee uu saxiixay madaxweyne Farmaajo wuxuu muhiim u ahaa dawladnimada waa sharci la jaan qaadaya nidaamka casriga ah ee ururinta dakhliga qodobada uu ka hadlayo sharcigan waxa ugu muhiimsan bixinta cashuurta iyo sidii loola macaamili lahaa cashuur bixiyaha sharciga batroolka dalka hindis sharciyeedka batroolka madaxweynaha waa saxiixay 8 bishii Febraayo 2020 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga batroolka dalka kadib markii labada aqal ee baarlamaanku ay ka soo dhameystireen hanaankii sharciga ahaa ee kaga aadanaa dhaqangalkiisa sharciga batroolka ee uu saxiixay madaxweyne Farmaajo ayaa ku salaysan sharciyadii batroolka iyo macdanta dalka dastuurka iyo heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaaga kheyraadka dabiiciga ahaa ee lagu saxiixay Baydhabo bishii Juun sanadkii 2018 sharciga batroolka ayaa muhiimad weyn u leh dawladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed waa sharci hagaya xuquuqda muwaadiniintu ay u leeyihiin in looga faa'iideeyo kheyraadka eegaaga dhulkeena isaga oo xayndaab u noqonaya kana ilaalinaya ku tagrifalka damaca shisheeye iyo musuqmaasuqa sidoo kale meelmarinta sharciga batroolka waxa uu maalgashadayaasha caalamiga ah u muujinayaa sida ay uga gacan tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ka mira dhalinta hiigsigooda ku aadan xasiloonida dalka iyo inay si wada jir ah ugu tallaabaan guga barwaaqa sooranka iyo horumarka sharciga maaliyadda guud iyo sharciga shirkadaha ganacsiga hindis sharciyeedka shirkadaha ganacsiga madaxweynaha wuu saxiixay hindis sharciyeedka maamulka iyo maaliyadda madaxweynaha waa saxiixay
bishii December sanadkii 2019 madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa meel mariyay laba sharci oo isku lifaaqan kuwaas oo muhiim u ah dowladnimada dalka ayna soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka waa sharciga maareynta maaliyadda guud iyo sharciga shirkadaha labadan sharci ee uu saxeexay madaxweyne farmaajo waa kuwa hagaya qorshayaasha dowladda ee dib-u-habaynta dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa sharciga shirkadaha dalka ayaa si gaar ah u dhiirigelinaya ganacsiga shaqo abuurka iyo fursadaha maalgashi ee dalkeenna wuxuuna si gaar ah u dhowrayaa xuquuqda hantiyeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa sharciga dhismaha gudiyada la dagaalanka musuqmaasuqa madaxweynaha uu soo saxiixay inkastoo guud ahaan sharciyadu ay muhiim u yihiin dalka haddana bishii September sanadkii 2019 waxaa la dhihi karaa wuxuu madaxweyne farmaajo qalinka ku duugay sharci dalku baahi weyn u qabay waa sharciga dhismaha gudiyada madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa heer federaal iyo heer dowlad goboleed sharcigan ayaa horseedaya ka hortagga iyo xakamaynta musuqmaasuqa oo dhibaato badan ku hayay dowladnimada iyo horumarka dalka madaxweyne farmaajo oo ka hadlayay munaasabadii sharcigan uu ku saxiixay ayaa yiri dowlad wanaagu waa wax dowladda laga rabo waana nagu waajib inaan hagaajino heerarka kala duwan ee dowladda waxa xaqiiq ah inaan hal mar la wada sixi karin wax walba maadaama dalku uu muddo dheer burbursanaa oo ay abuurmeen dhaqanno xun marka in dhaqankaasi iyo habfikirkaasi bulshada laga bedelo ayaanu rabnaa sharciga doorashooyinka sharcigaasna wuxuu ka bilowday heshiiskii baydhabo iyo ka bilowday baydhabo markaan soo tagnay baydhabo agreement dowlad goboleedyadii iyo annaga markaan halkaas ugu tagnay iyadoo la leeyahay waxba lagama soo saarayo oo sida uu sheegay Duqa Cabdulle inta badan dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta ah lagama filo inay wax isku raacaan aan ka soo saarnay in aan ku heshiinay qaabkii doorashada loo sameyn lahaa oo qof walba uu saxiixay uu committed uu ku noqday qof walba uu saxiixay heshiiskaas iyo kii khayraadka qaybsiga khayraadka iyadana inaan isku raacnay oo aan wada saxiixnay waxay ay aan wada saxiixnay in doorashada 2020 iyo 2021 ay u dhacdo qof iyo cod shacabka Soomaaliyeed dib in loogu celiyo awoodooda waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan waa maalin kale oo taariikhi ah 20 bisha Febraayo 2020 iyadoo lagu guda jiro munaasabadda soo xiritaanka kala fadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qayb galayay munaasabadda xiritaanka waxa uu madasha ku saxiixay sharciga doorashooyinka oo saldhig u ahaa geedi socodka dimuqraadiyiinta dalka sharciga doorashooyinka ee ay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka waxaa laga soo yeeshay doodo miro dhal ah oo ka soo bilowday heshiiskii baydhabo ee la saxeexay bishii Juun sanadkii 2018 iyadoo hanaanka daahfurnaanta ahna lagu ansixiyay taas oo muujinaysa sida ay uga go'nay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo in sharcigana uu noqdo mid ka turjumaya heegsiga iyo himilada shacabka Soomaaliyeed marka laga soo tago faahfaahinta aynu ku sameynay qayb ka mid ah sharciyada uu saxeexay madaxweyne farmaajo waa kan gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal oo inoo dulmaraya guud ahaan hindisa sharciyada la ansixiyay sharciyada madaxweyne farmaajo saxeexay kuwa hor yaala iyo kuwa loo gudbinayo warbixinta xisaab xidhka 2017 madaxweynaha waa saxeexay hindis sharciyeedka dheelitirka siyaasiyiinta Soomaaliyeed weli lama saxiixin madaxweynaha ayuu la yaalaa heshiiska midowga Afrika badbaadinta dadka ku barakacay gudaha Afrika madaxweynaha uu saxiixay heshiiska quseeya ilaalinta hidda dhaqameedka iyo midka dabiiciga madaxweynaha uu saxiixay heshiiska ilaalinta hidda dhaqameedka aan muuqan madaxweynaha uu saxiixay heshiiska ka mid noqoshada hay'adaha damaanadda maalgashiga ee tarafyada badan madaxweynaha uu soo saxiixay wax ka beddelka sharciga furdooyinka madaxweynaha loo diray wax ka beddelka sharciga iibka qaranka saas oo kale madaxweynaha ayuu la yaalaa hindis sharciyada hadda oo aan gudbin doono oo maanta la ansixiyay waa hindis sharciyada dib u eegista sharciga saxaafadda hindis sharciyeedka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada qalabka sida hindis sharciyeedka istatistikada Soomaaliyeed ama hindis sharciyeedka tirakoobka qaranka
hindis sharciyeedka duulista rayidka hawada hindis sharciyeedka tayadhowrka intaasna intii maanta aan ansixnay iyo saddexda kaleba madaxweynaha kuwaana maanta loo gudbin doonaa. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka oo aad kala socoteen bogga nabadiyonolol.com.